waddanka Mareykanka waxay ku tahay ceeb iyo fadeexad weyn ay ku tahay waliba Trump in uu dalabkii Israa'iil u hoggaansamay wax kamida iska badhe 50% sharafta waddanka Mareykanka uma wanaagsan. Preemptive war waxa weey dal baad arkaysaa inuu waxaad ka shikaday inuu dagaalka ugu soo qaadi karo ayaad ka shikaday marka isku awoodna waa tihiin ama waad isku dhowdhowdihiin marka waxaad ku qaadaysaa dagaal baad ku qaadaysaa si aan waxba ku gaarsiin laakiin sharciga caalamiga ah ma ogola. daawadayaal halkani waa MTV ku soo dhawaada falanqay kooban oo aynu ku eegi doono dalka Mareykanka oo muddooyinkii u dambeeyay ama tan iyo markii uu bilowday isku dhaca dhexmaraya Iran iyo Israa'iil ay Israa'iil ku soo jiideysay in uu qayb ka noqdo colaadda bariga dhexe ayaa waxa uu fuliyay subaxnimadii hore ee Saaka weerar oo ku qaaday goobo cayiman oo ku yaala gudaha Iran. goobahaasi oo ah goobaha la tuhunsan yahay ama ay ku yaalaan xarumaha nuclear-ka. haddaba waxaynu falanqaynteena kooban ku eegi doonaa maxay ka dhigan tahay weerarka uu Mareykanku ka fuliyay gudaha Iran. jawaab nooce ah ayay ka bixin kartaa Iran ama magaranaysa argudasho ay sameyn kartaa. waxaan sidoo kale eegi doonaa bal arintani waxyaabaha ay ku soo kordhin karto xaaladda gobolka. Cabdinaasir Timoweyne ayaa halkan stuudiyaha igula sugan. ugu horeyn Cabdinaasir muddo badan waxaynu maqlayn oo warbaahinta duniduna si weyn uga hadlaysay in mar uun ay Mareykanku gali doono colaadan bariga dhexe aakhirkii uu galay oo weerar ayuu fuliyay. maxay ka dhigan tahay in imika Mareykanku si toos ah u bamgareeyay goobo cayiman oo ku yaala Iran? waad mahadsan tahay, waa su'aal wanaagsan oo u baahan in laga jawaabo. waxay ka dhigan tahay Mareykanku ama Donald Trump waxay ka dhigan tahay inuu ka jawaabay waxa weeyaan culayskii iyo cadaadiskii ka haystay dadka waxa weeyaan Israa'iil u lobin gareeyay ee u dooda ee dalka Mareykanka kule awoodda. sidoo kale culayskii Netanyahu iyo xukuumaddiisu ay ku saariyeen Donald Trump inuu dagaalka uu ka qayb noqdo. marka waxay la macno tahay in uu culayska iska dajiyo isla markaana uu bal wixii ay doonayeen wax kamida uu u sameeyo Israa'iil laakiin de uu sameeyay si waxa weeyaan sidii ay doonayeen aan ahayn oo waxa weeyaan ka ismaarsan iyagana qancinaysa waxa weeyaan isagana waxa weeyaan wax u qalma oo muxuu ahaa leadershipkiisa ku dhisan inaanu Trump dagaal qaadaynin ku dhisan uu sameeyay oo de wuxuu sameeyay wax la yiraahdo smart attack oo waxa weeyaan waxba ku dhuftay target buu yeeshay dhowr minad ku qaadatay خلاص uga baxay hawadana uga baxay. marka waxay ula macno tahay waxa weeyaan in uu iska dul qaaday culayskii waxa weeyaan ka haystay Israa'iiliyiinta. sidoo kale dhinaca kale Israa'iil waxay ula macno tahay waxa weeyaan fariin ay u dirayso caalamka oo ah markay u baahato waddanka Mareykanka in ay hubaal tahay inuu garabkeega istaagi doono oo Israa'iilna ay ku nafisi doonto weeyaan. way Cabdinaasir markay waxaan ognahay in Israa'iil ay gudaha Iran weerartay markii u horeysay oo ay dad ku leysay. jawaabtii Iran ka bixisana ilaa imika ay socoto. su'aasha la isweydiin waxa tahay jawaab nooce ah ay Iran ka bixin kartaa weeraradan uu ku soo qaaday Mareykanku? jawaabta ku dhisan Iran waxay ka bixin kartaa laba jawaabood. waa jawaab ku dhisan caadifad oo emotional ah iyo jawaab ku dhisan waxa loo yaqaano rationality-ga iyo mabda'a waxa weeyaan realism-ka ku dhisan. ta waxa weeyaan muxuu ahaa caadifada ku dhisan waa inay dalka Mareykanka waxa weeyaan danihiisa bariga dhexe uu ku leeyahay ama gobolka uu ku leeyahay ay waxyeelayso oo ay waxa weeyaan weerarto ayay sameyn kartaa. tan kale wanaagsan waxa weeyaan laga filayo waxa weeyaan ku dhisan rationality-ga waxa loo yaqaano macquulnimada siyaasadda ku dhisan aqliga siyaasadda muxuu ahaa rasiimka ku dhisan waxa weeyaan in ay muxuu ahaa aanay ka jawaabin dagaalka weerarka Mareykanku soo qaaday ee kooban ee dhacay inaanay ka jawaabin oo aanay isaga weerarin ayaa muxuu ahaayay ayaa la haboon. afar sababood dartoodba way wanaagsan tahay markaad eegayso xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda ama habka waxa loo yaqaano behavior of state habdhaqanka qaramada markaad eegayso say u jawaabaan rationality-ga markaad eegayso waxa weeyaan afar sababood dartood inay jawaabto ayaanay u haboonayn Iran oo ta koobaad ay tahay in waddanka Mareykanku sababta uu u sameeyay weerarkani ay tahay waxa la yiraahdaa for realist reason balada waa sabab khusaysa waxa loo yaqaano xaqiiqada siyaasadda. marka dalalku way yaqaanaan dalalka waaweyn ee ay u taliyaan dadka
aqoonta leh ay u taliyaan isla markaana leh institutionska cilmi baadhisaha leh isla markaana aadka u yaqaana xiriirka caalamiga ah way yaqaanaan arrinkan way yaqaanaan oo waxaa la yidhaahdaa preventive war ayaa la yidhahdaa ama preventive attack baa la yidhahdaa waxa weeyaan ka hortag baa la yidhaahdaayo dalku wuxuu filayaa dalkaasi inay khatar kaga iman doonto sidaa daraaddeed wuxuu is yidhahdaa intaanu khatartaa ku gaadhsiinin waxa weeyaan daciifi oo meelaha aad ka baqayso inuu wax kaa gaadhsiiyo waxa weeyaan ka curyaani buu is yidhaahdaa marka dee maraykan wax ma yeeli karto laakiin israa'iil ayay ka difaacaysaa oo ka hortagaysaa wixii kaga iman karayay ee de Netanyahu uu ka ooyay qodobka labaad ee aanay inay u jawaabin ay tahay baa wuxuu yahay limited attack baa la yidhaahdaayo uu soo galay waxbuu ku dhuftay uuna ka cararay hawadana uu uga baxay marka waxay la mid tahay waxa weeyaan inay ka daba tagto kuma haboon mar haddaanu dagaalkii ku jirin dagaal weyn aanu ku soo qaadin sidoo kale qodobka saddexaad ee muhiimka wuxuu yahay haddii Iran ay samayso retaliation hadday samayso oo ay jawaab celiso oo ay jawaabta ku aadiso danaha wadanka Mareykanka wadanka Mareykanka waxa la yiraahdaa the great power international relations great power waa wadan hore u xanaaqi og waa wadan galaafayr haddii la gaarsiiyo ay aad iyo aad u dhibayso waxa la yiri ninka xoog weyni hortaabuu xanaaqa marka isaguna uu ka jawaabaya deetana khasaare weyn buu gaarsiinaya taasi waxay keenaysaa haddana in gobolka ay soo galaan dalalkii gobolka waddan Iran taageeri haddana ay soo galaan reer galbeedkii oo ay noqoto wadanka Mareykanku meel fog buu adduunyada ka jooga meel safe ka jooga waxa soo gaari karoon khasaare la xidhiidha geopoliticska iyo meelahan uu degan yahay laakiin dalkiisu waa safe meesha lagu dagaalamayana ay tahay bariga dhexe Gulf countrieski waliba Iran qodobka afraad ayaa ah ee Iran ay tahay inaanay uga jawaabin waxa weeyaan wadanka Mareykanka ee great power ka loo yaqaano ee awood weyn leh Ilaahay baa awood weyn leh waxa weeyaan Iran way dhisan kartaa nuclear-ka dib ayay u hagaajisan kartaa marka waxa u haboon dal Iran oo kala ah oo xaaladda ay Iran ku jirto maanta ku jira oo waxa weeyaan haddana ay xaaladdan oo kala dhex martay dal la yiraahdo America la yiraahdo oo waliba uu hogaamiyo nin loo yaqaan Donald Trump oo aan dagaal jeclayn oo aan dagaal doonaynin inaad sii daba gasho wax ay ku qasabtay duruufta siyaasadeed iyo cadaadiska siyaasadeed ee haysta ay ku qasabtay inaad daba raacdo oo isaguba uu doonayo uu leeyahay talow niyow yaa wuxuu sheego ka dajiya uu leeyahay waxa weeye inaad daba gasho ma haboona waxa weeye inaad awoodaada aad intay leegtahay aad socoto waa very important oo noqoto long strategy fikir dheer aad ka fikirto way dad baa waxa isweydiinayaan su'aal ku saabsan su'aalaha kale Mareykanku maadaama oo uu bariga dhexe saldhigyo badan uu ku leeyahay Iran markasta ay sheegaysay inay bartilmaameed ka dhigan saldhigyadiisa ma jiraan saldhigyo cayiman oo la garanayo oo weerarkan ama diyaaradihiisa duqeeyay Iran ay ka soo qaadeen weerarka inkastoo aan la xaqiijin sida ay sheegayaan wararka qaarkood ay sheegayaan waxay sheegayaan wadanka Mareykanku inuu weerarka Iran ka soo qaaday jasiirad ku taala Indian Ocean-ka inkastoo meel kale ka yimid ee halka waxa weeyaan ay ka soo kaceen oo magaceega la yiraahdo Diego Garcia la yiraahdo oo jasiirad wadanka Ingiriisku uu ku leeyahay waxa weeyaan Indian Ocean-ka oo uu bari hore dadkeedii ka qaaday uu xoog kaga qaaday oo ay sheegato waxa weeyaan dalka loo yaqaan Mauritius ay sheegato oo waxa weeyaan maxkamadda adduunka ay uga xukuntay laakiin oo ilaa imika haysto ayuu dagaal ka soo qaaday wadanka Mareykanku ayuu Trump ka soo qaaday taasoo uga dhigan waxa weeyaan macno weyn ku sheegaysa oo ah sida uu uga taxadirayo Trump inuu gobolka dalalka ku hareeraysan Iran uu dagaal oo ka qaado oo waxa weeyaan dagaal hadduu ka qaado dalalkii jaarka ahaa xasaradii gobolka ayaa iyaduna aad u sii xumaanaysa oo Iran meesha uu dagaalka ka soo qaaday ay iyaduna khasaare weyn gaarsiinaysa marka gobolku qas weyn ayuu galaya marka taasina waxay ku sheegaysaa laftigeega habka smartness-ka uu fikiray Trump sida uu uga durkay saldhigaasi wuxuu u jiraa wadanka Mareykanka wax ku dhow ama ka badan ba 5,000 oo kiiloomitir xataa laftigeega oo Iran hadday istiraado hub ku rid aanay gaarsiin kareynin oo waxa weeyaan Iran de missile-keeda ugu dheereeya waxa weeyaan sida aan de xogaha ku jira waxa weeyaan Google-ka ee la qoray ay sheegayaan 2,500 oo kiiloomitir bay gaari kartaa isaguna waxa weeyaan 5,000 oo kiiloomitir meel u jirta ayuu waxa weeyaan weerarka kaga soo qaaday oo jasiirada kaga soo qaaday marka taasi waxay sheegaysaa
taxadarka uu ka muujiyey in gobolku uu waxa weeyaan sii qasnaado. qodobka labaad isaguna xusuuda mudan ayaa wuxuu yahay Trump maanta uu hadlay sida uu hadlay wuxuu hadlay markaad eegto dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasinimada iyo siyaasadda xiriirka caalamiga iyo waxa weeyaan Trump sidii looga bartay markaad eegto si wanaagsan oo yani wanaagsan yaan oranin laakiin si ku habboon xaaladda maanta ayuu u hadlay. waxaan u sheegay markaa oo waxay noqon kartaa xataa Iran laftigeega fariin u diraysa ay noqon kartaa oo yani laab qaboojin laftigeeda xataa noqon kartaa. wuxuu yidhi markaa wuxuu sheegay laba arrimood baa ka mid ah hadalkiisa. kow wuxuu sheegay ujeedada uu qaaday waxa weeyaan dagaalka uu qaaday inay tahay in uu burburiyo nuclearka waddanka Iran ayuu sheegay oo waxa weeyaan targetkiisu intaa yahay. markaa taasi inkastoo ay tahay in aad laga taxadaro oo taasi waxay meesha ka saaraysaa shaki baa jiray in loo socdo nuclear kaliya loo soconin laakiin Iran in regime change la sameeyo oo la bedelo waxa weeyaan systemka meesha haysta oo la fuliyo sida ay doonayso Israel ayaa laga shaki qabay. laakiin arrinkaa uu iska gartay waddanka Mareykanku marka Trump uu garto wuxuu yidhi anaga ujeedkaygu wuxuu ahaa kaliya inaan nuclear ka burburino. marka meesha waxay ka saaraysaa yani uma jeedno in anagu rejiimka meesha haysta aan meesha ka saarno uma jeedno ayuu u jeedaa halka ay doonaysa Israel totally ba in meesha laga saaro nuclear way ku gabanaysaa waxay doonaysaa in laga saaro rejiimkan meesha jooga ama rejiimka yani maamulka meesha jooga. dadku rejiimku waxay u haystaan wax cayb laakiin isa system un rejiimku weeyaan. marka waxa looga bartay marka had iyo goor Mareykanku markuu dagaal qaadayo been buu sheegaa. tusaale ahaan oo kale Ciraaq markuu weerarayay inkastuu toos u weeraray oo uu sheegay inuu bedelayo laakiin haddana wuxuu nuclear waxay haysataa chemical iyo biological iyo waa been. sidoo kale Libya markuu weerarayay wuxuu yidhi anagu nidaamka Qadaafi ma ridayno laakiin waxaan doonaynaa inaan daciifino awoodiisa oo aan shacabka inuu dilo aan ka ilaalino ma doonayna. laakiin markay weerareen Ruushku uu yaabay wuxuu ka yaabay markay weerareen si dhammaystiran bay u weerareen. marka Ruushku wuxuu yidhi Mareykanku waa munaafiq waa laba wajiile been buu noo sheegay inuu been sheegaana sax bay ahayd waxay sax ku ahayd hadduu warar baan ku qaadaya yiraahdo waa la faragelin oo waa meeshan ka saaraya faragelin weyn baa la sameyn lahaa. marka waxaan uga jeedaa waxa laga fikirayay oo loo maleyn karayay in Israel ku guuleysan karto haday doonto in regime muxuu ahaa systemka meesha haystaba la bedelo. way marka dul istaagno Iran imika waa la weeraray oo Mareykanka baa weeraray waxaana soo baxayay muddooyinkii Mareykanku hanjabiyay digniino ka imanayay xulafada Iran oo Ruushka iyo Shiinaha ay ka mid tahay. maxay ilaa imika iyagu sameeyay falcelin ka sameyn karaan ama ay talaabo qaadi karayaan maadaama oo weeraradii ay ka digayeen Mareykanku ku qaaday Iran. Mareykanku wuxuu sameeyay wax loo yaqaano smart attack meel buu galay uu weeraray uu ka baxay. sadarteed meesha ma taalo dhibaato weyn oo ay sameyn karaan dagaal iyo waxaas ma yaalaan wayna garanayaan iyaga laftigoodu behaviorka wadamadu way is yaqaanaan way does a state muxuu wadan u sameeyaa sida uu sameeyo muxuu u sameeyaa way garanayaan. marka waxa laga filayaa ay sameyn karaan waxa weeyaan inay cambaareeyaan oo yiraahdaan waxaasi sharciga caalamiga ma waafaqsana qalad buu Mareykanku ku sameeyay waan cambaaraynaa sida ay Pakistan ba u cambaaraysay sida uu u cambaareeyay Sacuudigu uga hadlay uu sheegay inuu ka warwarsan yahay waxa meesha ka socda ay fiiro gaar ah u yeelan doonaan oo wuxuu ka baqayaa Sacuudigiina in nuclearka marka lagu dhufto meesha ay khasaare gaarsiiso xagga nolosha dadka iyo deegaanka I think madaxweyne Trumpna inta uu ka aqli badan yahay in uu nuclearka aniga say la tahay intuu meel nuclearku yaalo wax ku dhufto oo ay gobolka wax gaarsiiso oo marka horeba istaraatiijiyad waa inuu ku socdaa waa very important waa muhiim. marka waxa laga filayaa xuutiga iyo gruubyadan iyo waxyaabaha la xiriirana waxay ku xiran yihiin iyaguna Iran laftigeeda bay ku xiran yihiin sida ay dareento. marka haday iyadu dareento inay emotional u jawaabto waxay oran doontaa idinkuna qas sameeyo jawaaba. haday qaadato nidaamka rationalka marka qaar jug waa la isgaarsiiyaa waana la kala cararaay inay barta ku joojisana way sameyn kartaa. sidoo kale waxa jira Cabdinaasir Timoweyne cambaareyn ka imaneysay dalalka dunida haday noqoto Pakistan Ciraaq iyo waliba Saudi Arabia iyo dalal kale oo cambaareynaya oo sheegaya
arrintan in xaaladda gobolka uga sii dari karto sidoo kale xogayaha guud ee qaramada midoobay Guterres ayaa sheegay in arrintani ay tahay mid xadgudub ku ah nabadda adduunka marka cambaaraynahan kale ama laga hadlayo sidee qaab nooce ah ayay garanaysaa u saameyn kartaa Mareykanka inuu ka joogsado ama aanu sii wadin weeraradan waxay u saameyn kartaa waxay saameynaysaa uu garanayaa Trump laftigeega xataa waxay u saameynaysaa international law ma ogola in dal intuu qaado dagaal oo dal kale ku qaado dagaal xataa international law UN charter ma ogola in dal xataa dal kale uu hanjabo inuu weerarayo inuu dilo inuu muxuu ahaay khasaare gaarsiinayo oo article-ka loo yaqaano article-ka la yiraahdo UN charter-ka 24 la yiraahdo wuxuu sheegayaa prohibit ka dhigaya mamnuuc ka dhigaya in dal kale uu ku duulo ama u hanjabo ayuu mamnuuc ka dhigaya marka sidoo kale waxa weeyaan dal inuu dal kale ku duulo waxa loo yaqaano xataa reer galbeedka morality-googa iyo anshaxooga sida ay qorayso theory-ga loo yaqaano muxuu ahaa theory of war uu qorayo oo ku dhisan waa theory ku dhisan waxa weeyaan secular iyo diinba ku dhisan weeyaan iyo dhaqan ku dhisan weeyaan dhaqanka galbeedka ku dhisan weeyaan ma ogola theory-gaasi na in dal uu dal kale dagaal ku qaado labadaasiba ma ogola okay waxa international law ogol yahay qodobka loo yaqaano UN charter-ka 51 wuxuu ogol yahay dal inuu dal kale dagaal ku qaadi karo waxa weeyaan hal mar oo kaliya oo ah dalkaasi hadii uu ku soo weeraro oo waliba cadeyn loo weerarka qaado inaad weerari kartid adiguna aad u celinaysaa siga celiso ayaa jirta marka xiriirka caalamiga iyo concept-ka caadiga ah international law-ga iyo concept-ka caadiga ama moralka caadiga dadka reer galbeedka iyo adduunyadu ma ogola in wadan uu dagaal ka qaado laakiin waxa jira qodob kale oo loo yaqaano isagoo realist reason baa la yiraahdaa realism-ka ayaa ka hadlo wuxuu sheegaya dabeecadda caadiga ee bani aadamka ee dalalka ayuu ka hadlaya waxa jira dagaal isaga la yiraahdo preventive war baa la yiraahdaa marka iyo waxa la yiraahdaa preemptive war labadaba ogol yahay realism-ku preemptive war waxa weey dal baad arkaysaa inuu waxaad ka shikaday inuu dagaalka ugu soo qaadi karo ayaad ka shikaday marka isku awoodna waa tihiin ama waa isku dhowdhowdihiin marka waxaad ku qaadaysaa dagaal baad ku qaadaysaa si aan waxba ku gaarsiinin mid kale isna waxa jira la yiraahdo war of opportunity oo waxa jira wadanka markuu daciif yahay baa laga faa'iideystaayo waa la ragaadiyaa si aanu adigaba ku soo gaarin marka laakiin sharciga caalamiga ah ma ogola morality-guna ma ogola inuu dal kale weeraro sadirteed wadanka Mareykanka waxay ku tahay ceeb iyo fadeexad weyn ay ku tahay waliba Trump in uu dalabkii Israa'iil u hoggaansamay wax kamida iska badhe 50% sharafta wadanka Mareykanka uma wanaagsan aad iyo aad buu daawadayaal u mahadsanyahay kaas waxa uu ahaa Cabdinaasir Timoweyne oo bartan aan ku falanqeynay amar ku saabsan weerarkii uu Mareykanku qaaday gudaha Iran intaan falanqeynta ku doono aniga iyo Cabdinaasir oo falanqeeye arrimaha caalamka faalooda oo xiriirka caalamiga bartay intaas ayaan ku soo gabagabeynaa sida iyo nabadgelyo Gulf Star Hotel waa hotel casri oo lagaga furay magaalada Hargeysa waxaad ka helaysaa adeegyo kala duwan qaybtii cafeteria-da oo aad ka helayso cuntooyinka fudud iyo waliba kuwa kale qaybtii hurdada oo si casri ah lagu diyaariyay anaad ku seexanaysaa habeenkii $25 qaybtii gym-ta iyo jimicsiga hotelku waxa uu ku yaala ka soo jeedka masaajidka Ibrahim Dheere ee faahfaahinaya intaasi dheerna fadlan kala xiriir lambarada shaashada kaga muuqda